السلام عليكم بلا توك شو يا مركله soo dhawaada maanta aadan kuma soo dhaweynayo diyaar weeyaan soo dhaweyntu iga badatay malaha aad iyo aad waxaan sidaa mowduuc wanaagsan mowduucaasi wuxuu la xiriiraa la saaxiib la'aanta waalidka ilmaha toos baynu guda galaynaa okay su-aasha koowaad waxa weeyaan inagu Soomaali ahaan waynu ka maranahay dhaqanka ah in ilmaha la soo dhaweysto lala saaxiibo sidee baad u aragtaa adigu ayaanay kama marnin dhaqanka ilmaha in lala saaxiibo quraay caadifadoo dhan baynu ka maranahay aanu caabiyo dhaliil u naqaana way haddii imika masalan nabiga calayhi salaam iyo qisooyinkiisa marka laga sheekeynayo waxaad maqlaysaa nabiga intuu hadalka yidhi Abubakar halkan ooyey ceeni Cumar baa ilmada siiriyey haddana Cumar uu garanaa arrintii taariikhda ugu adadkaa soo maray bay ahaayeen qofka bini'aadmiga ahi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siduu caqligeena u abuuray waxa jira caqli garaadaho caqligiisan si caqligiisan u fakara iyo caqli caadifi hoose caadifadiisan u fakara innaga Soomaali ahaan maadaama aynu nahay bulsho reer baadiya bulsho reer guuraaya caadifadaha iyo emotionska waxa la yiraahdo iyo shucuuruhu agteena muhiimad kuma laha jacayl ma muujin kartid waliba maaha caadifadaha dhan waa kuwa wanaagsan weeyaan nacaybood muujin kartaa laakiin jacayl ma muujin kartid sida badanka bulshadeena dhexdeeda marka caadifadu dhan baynu ku liidanaa emotionsko dhan baynu ku liidanaa heer xataa ninka Soomaaliyeed markii la barbaarinayo waxa lagu barbaariyo haddaan kufnaano inuu lagu yiraahdo nin baa tiisaad u weydaa ilaa markii dambe qalbiyadayda ay qalaleenba oo iminka hortaada haddii qofna lagu jarjarayaanay ilmiisku hasoo taageen marka la saaxiibista carruurta qura maaha ee dhammaan caadifadaha oo dhan bay dadkeenu ku liitaan aad waliba ay ugu liitaan sida awadeed iminka dhalinyaradan u soo baxday baraha bulshada ee arrimaha emotionska iyo caadifadaha iyo cilmi nafsiga kala hadasha wadayuga loogu badan yahay lagu xidhan yahay sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan qof kasta wuxuu ka dhex arkayaa goldoloolo uu gudihiisa ka dareemayay qofan ooyi karayn naxariis muujin karaynin wanaagaan cabiri karaynin si walba yacni u jabay marka xagga emotionka laga eego marka aad bay u liidataa oo xataa haddii ay dhacdo oo waalidku ilmihiisa jacayl u muujiyo dadkan waxay ku dhahdaan qofkani carruurta meendhuhu ka dhalay haddii imika ilmaha yar lagaaga soo dacwoodaa seed bersigana weydii waxa inuu eed ku leeyahay in kale waateed war aabba waxa ismiyi jiraan miistaradda si caadi wuxuu weydii carruurtu saa horboodaya qaban maayo lagu odhanaya carruurta ba isaga horkacaya oo xumaanta horkacayo saa u tadhihinaya ha bulshadanu saa u dhaqanto laakiin sida saxda waxa weeyaan ilmaha inaad weydiiso oo aad u soo bandhigto teed war aabba waxaa ka war marka haddaad xataa ummad dhaliyaan carruurtaadi jacayl u muujin lahayd bulshadii baan ka aqbalayn jacaylka inaad muujiso hadda dad si caadi ula dhaqantadan jacayl baa muujin bulshadii baan ka aqbalayn koonaya mindhahaad ka dhashay iyo waxay weligeed bad isku dhali jireen waxay gun wiil ku curatay baa taa marka walaal emotionka oo dhan baa agteena ku liita su-aasha labaad waxa weeyaan saameyn intee leeg ayay ku leedahay bulsho ahaan in waalidku aanu carruurtiisa u noqon saaxiib wanaagsan ama kasban kalsoonidooda si aanay meelo kale uga doonan waxay waalidkood ka waayeen tani saameyn dhinac walba waxa la yiraahdaa qofka bini'aadmiga dabciyadiisa inta cimrigiisa ka hadhay oo dhan uu ku dhaqmayo ee ku noolaanayo ee dabciga iyo habdhaqanka u noqonaya gabigeedu wuxuu u sameysmaa 6 sanadood ugu horreysay cimrigiisa 6 sanadood haddii qofka yar dhaqamo xaasidnimo damac xumaan nacli waxaas ay ku abuurmaan cimrigiisa dadka dhimasaas ku qaadanaya haddii si wanaagsan loo tarbiyadeeyo 6 sanana way hagaagayaan marka waalidkina laftarkiisa uma tababarna qaabkan waalidkina laftarkiisii uma tababarna caadifad ahaan iyo muush ahaan isagiiba sidan lagu soo koriyey waxaa jira aabba noo sheekeynaya maalin baa wuxuu yidhi anagoo yaryar baa ay geela raacnay dabeetna oday adeerkii oo jaamac loodhan jiray baa ku yidhi waryaadhahan geela jeexa iyo jeexa intaad u daaqgeysaan hadhow markaad caawa geela soo hoynaysaan dhangadihiina la dhici lahaa soo goosta dabeetna intaan soo boday baan ku dhawo eedha aabba maxaa lidinku dilaya dad geeli raacdeen bisuu yidhi abi dhiirigelin baana looga dhigay yani aabbahay tusaale ahaan iyo jiilkan iga waaweynaa wax lagu soo dhiirigelin looga dhigayo lagu dhiirigelinayey in markay shaqadooda si wacan u qabsadaan la garaaco ka waran markay shaqadooda si wacan u qabsan waayaan gawrac baa u yaallay saacaddan anigu waxaan aabbahay abaa lagu hayaa inaanu garaaci jirin shari khayrtan inaanu igu garaaci jirin ayaan aabba abaa lagu hayaa marka waalidka laftarkiisa eed yeelan maayo mawduucyada waalidka marka laga hadlayo badanka waalidka eed baa loo sameeyaa waalidku waa caynkan waalidku waa sidan waalidku waa inuu sidan sameeyaa war waalidkeen waddankoo burbursan waddankoo si walba u bacsan waddankoo miya laga soo xiroonayey waddankoo dagaala galay waddankoo qabiil la isu eriyanayey 40 sannadood burbur ku jirnaa waalidkeen waa dadka 40 sana dhashay marka waalidkeen cudurdaarkooday leeyihiin si kasta inoo soo dhaqmayn dhib kasta inoo geystanaya gardaamo kasta inoo ka tirsanaynaba cudurdaarkeeday leeyihiin ee innaga ayaa ay tahay kuwii waalidka saxda noqon lahaa waxa korriinkoodii ka soo khaldamayna iyagu iska dhisay imka qofka akhriyo buugaagta laga qoray maanta waalidnimada iyo arrimaha noocaasa ee daraaseeya isagaas dhisaya qofkaasi isagaas dhisay inuu hooyo barigeesa kula dhaqmi jirtay caynkan iyo waxa jira waxyaabo fara badan waalidku ay nagula dhaqmaan dhib ahayn laakiin markii dambe foobiya nagu sameeya sidan kula dhaqmi jirtay hadda dhibaatadaas kaga abuurtay waa caadi saxle adigu iska dabaadaas ka dabiibay marka
jiilkan iminka jooga wax akhriya ee dib bugaagtii waalidnimada laga qoray wax daraasin karayaan iyaguna hay isbedelaan waalidkana ha loo cudur daaro iyaguba sidan bay kusoo koreen nin baa jira gurigayga burco maqaam waxa ku xigi jirtay meel malcaamada tana subax baan ku toosay ilmo yaro aad loo dilayo bugtiisa anoo cadhaysan baan dibadiisa ay soo taago dabeetana gabadh baa ku jira wareedhe ilmahan yar aad sidan u dhan u dilaysaa waa maxay adeer annagaba macalinkii baa ku adeer annagaba iskooba qur-aankana lagu soo bara marka macalinkii wuxuu leeyahay iskooba lagu soo baray sideedana kale u noqdo qur-aanka si wacan ugu bartaana wayna sidii oo kale u garaacaa walaas waalidkii caqligooda u jooga dad markii hore baadiye kasoo xorooday badigoodu markii dambena dagaal iyo buuq la kulmay xaalku adiga marka waalidkana loo cudur daaro inaguna aynu noqono waalidkaas perfect ah wanaagsan aynu doonayno aynu noqono intaynan waalid noqonaynan wax dhalina kuwa inaga yaryar iyo kuwa qoysaskeena inaga yaryar aynu tijaabooyinka waalidnimo wanaagsan ku samayno aynu sii fahanno waay haddaba waaye sidee baa waalidkan imika jooga loogu baraarujin karaa qodobkan hadda aynu ka hadlayno si loogu baraarujin karaa waalidkii baa kala labaa mawaalidka inaga ina dhalay waa yeelkaa kuwa inagoo kala mise kuwa inagoo kala ah ee guurka inaga horreeyey waalidkii baa kala labaa waalidka hore cafalaha macma salaf wax allaali shar iyo khayrba waxay lahaayeen way la tageen maanta qancin ma baahna dadka waaweyn ismaamulaya inaga imika waa labadii halkan fadhiyna wax baadhayna marka waalidka waaweyn iyagu wax allaali iyo shar iyo khayr tunayaan lagu darsanaha loo duceeyo waalidkii yarar baa soo hadhay da'aadiheenana ama adigu wixii imika ilaa hadda afartanka ka hooseeya soo hadhay waalidkaas nin horta mushkilad baa jirto oo inaad dadka mas-uuliyaddooda isa saarto tahay dalkeena waxan baa ka xun dadkeena waxan baa ka xumayna waxan iyo waxaan qabta wayna dadka waxaa ku qanciya adigii dhibaato ku noqonaysaa ka waran dadka haddaan doonayn ba waxaan ku qancaan ka waran waalidkan 5 carruur ah dhalay 40 jirka ka yar dhowr 30 jirka ah haddaan waalidnimada baynu fahmi doonayn meentid gurigiisa u la fadhiisanaysaa waalidnimada u sharaxaysa waxaan qofku dadku iyaga waxay doonayaan raadiya hooyada doonaysa inay hooyo wanaagsan noqoto iyada raadinaysa sida hooyo wanaagsan noqdo aabaha doonaysa inuu aabe ka soo baxa mas'uuliyadiisa noqdo isaga raadinaya inagu waxa qura aynu qaban karnaa waxa weeyaan warbaraha bulshada aynu gacanta ku hayno iyo macluumaadka aynu faafinayno aynu wixii saxda ah ilaahay nagu ogyahay ku sheegno halka ummadda ka wacyi gelino haddii kuwan iminka ay qaadan waayaan midaan iminka waalid baa ahayno iska dhegeysta iminka ay noloshiisa macnuu samaynaysaa ayuu mustaqbalka dambe laga yaabo inuu wax qabsado laakiin marnaba inaan isa saaran hamiga sidee dadka waxa looga bedeli karaa wama cala rasuuli ila albalaaq ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan kulli rasuulka waxa qori waajibka ku hay waa maxay waa inuu fariinta dadka gaarsiiyo inaga muhiimadana waa inaan xogta dadka gaarsiino xogta saxda kii qaadanaya kii ka tagaya muhiim ma aha waa si wanaagsan su'aasha kale waxa weeyaan haddii aan waalidkaygu baraarugsanayn dhibaatooyinkana kala haysta sidee baan ugu bandhigi karaa waxaa jirta murti carabiyad oo tiraahda man shaba calaa shayin shaaba calayh waman shaaba calaa shayin maata calayh qofku wuxuu ku dhalinyaranimoobo wuu ku ciraystaa wuxuu ku ciraystana wuu ku dhintaa waalidka ha ka filanin laba eray oo aad ku tiri horta inuu isku bedelo oo sidaa doonaysid uu ku noqdo ha ka filanin haddii waalidka masalan uu gacan adag yahay ama waalidka uu yahay waalidka aadka wax u maamula ee carruurta noloshooda oo dhan ilaa dharkay xidhanayaan inuu u go'aamiyaan jecel waalidka noocaasi hadduu yahay way adag tahay qaabkaad talo iyo tusaale iyo wuxuu soo bandhigisaad wax ugaga jari kartaa oo dhallaankii hooyadii dhalmada baray mahmaha la yidhahdaa ba jirto oo lagu afwaajiyo qofka yar markuu yidhahdo waalidkii wuxuu sheego lagu yidhahdo wari amaano aabbaha ama hooyadaada wixii sheegaysaa marka waxaan anigu soo jeedinayaa waalidkiinu haddii dhibaatooyinka noocaas idin kala haystaan idinku waalidka isku daya inaad bedeshaan idinku bartasaad dhibaatooyinka ula noolaan lahaydeen haddii aad barin kari weydaan idinku adkaatana meelo kale u guura waalidkiin si wacan u xidhiidhiya laakiin meelo kale u guura oo ugu yaraan aad kala yara durkaysaan oo aydinaan isku indha badanaynin haddii kale waad isnaxaysaan مثلا برعو كلا دقنتي مثالهان هرجيسان جاعت كلا ينو هرجيسي سيو غورا ما هرجيس ريركاغي waxa igiisu deetna isku indho badashadina ma meesha ka baxaysa marka waalid iyo wiilkiisa iyo wanaagsan ama waalid iyo intiisa wanaagsan is jecel bad isku noqonaysa laakiin inta la taliyo inaan ku qanciyo inuu wax ka bedelo oo noloshada aanu soo fargashano kada waxaan ku qanciyo waalidka Soomaaliyeed aqli ma aha waalidkina waa Soomaaliyeed waalid baabade adduunka wax yara akhriyo wax ku leeyahay fahansan waa sax duuduub bayn ku dhaafaynaa taa haddii aan waalidku la socon korniinka ilmaha dhanka hormoonka xilliga qaangaadhka oo kale dhibaato intee leeg bay ku keeni kartaa horta waalidkii hormoonkii isbedelada hormoonada ma fahansan yihiin waalidkii hormoonkan iyo waxan maba yaqaanaba inanku maalinkaas waxaa jira marka wiilashu ay qaangaadhayaan wax alaaliyo waxa dareemaya ragnimadu ay wadato dhan baa hal mar ku wada habsadan dabeetana kibir iyo sintaag buu ka qaaday xataa hooyadii buu ku yidhahdaa anaga nala hadlina nagat odaygu xataa isku soo taagaa dabeetana dacayadba markaa loo sameeya wax la yidhahdaa marka la arko inanka yar isagoo markuu kuriga yara noqday isagoo soo yara buuqbuuqaya hadal badan kilkiladiisa wartay baa la yidhahdaa maalinkaas ayaa kilkiladaada ku wartay iyo waad isqaadatay iyo waad kibirtay iyo buuq inanka lagu bilaabaya buuqaasna wuu sii durkiya aduu doono dilma u raacinaya markuu khaladaad teenagernimo ku dhiciyo barbaarnimo inantana maalinkaasaa
bila adri adaa iga aqoon badan xagga hooyooyinka iyo habluhu u tacaamulaan laakiin istir wax la aaminsanaya inta maalinka cadaadis baa fuulay iyadoo wax alaali wixii dumarnimo ee dareen iyo dabci baa hay markuu wada kulmeen ayaa haddana intaa canaan iyo qayle iyo hooyadu inay ilaalin dheeraada ku bilowdo isku samaysa iyo inay sidii hore ka badan u kor joogtaysa iyo in adu nolosha cidhidh lagu gelinaya marka walaal waxna mushkiladan oo dhan waxa weeyaan faham la'aanta waalidka haddaan iyagii fahansaneen hormoonadan isbedelkooda haddaanay fahansaneen mushkiladii meesha ka jirta haddaanay fahansaneen wax walba waa qarrimaya badankana barbaarta marka la yahay teenagerka lagu jiro waxba dadkan meelahan Facebook iyo meelahan kaga sheekeeyo hooyadii baan adduunka ugu jecelahay waxaan waa run qof walba adduunka ugu jecel laakiin xaqiiqo waxa marka qofka Soomaaliga ah uu teenager yahay isagii waalidkiin dhibaato weyn ay soo kala dhex gasho oo isagiina dareenadan ku cusub iyo waxaan oo dhan uu ay meel ay ka baxaan waayaan fulkaano gudihiisa ka qarxayay yihiin waalidkiina isleeyihiin yaanu intuu imka yar yahay aad gacanta ku hayn karsan gacanta ku hayn waxa jira hadal islaam oo caan ku yihiin hooyooyinku ay dhahdaan inantii gees bay yarataayo haddana maalin kasta laga jabin uu gaamuraa kowdhe marka waxay waalidka dabiib iyo dawo inantii uga dayayaan inay dilaan ama caburiyaan ama taleefon bay maanta ugu foortaa ama caayaan inanta Soomaalida sida caadiga ah gurigooda sida badankaa mooba Soomaalida koonfurta Soomaalida waqooyi sida badankaa ay aflagaadiya ana waxaan hayn kalma kulanto wanaadir inanta reer waqooyiga xataa cuntada ay karsiin loogu mahadnaq aad bay naadir u tahay haddana imika la bixinde aad bay naadir u tahay markaad aragto nin inan walaashiya ku faanaya ama inan walaashiya sawir la gelaya ama inan walaashiya meel soo dhigaya iska daa ninka daaya inanta ixtiraamaysa inanta madaxa saaranaysa isu gudna walaaluhu way u kala xidhan yihiin inama iyo hablaba way u kala xidhan yihiin inaga dhexdeena reer waqooyigeena weliba waalidkuna marka qaar waxay soonaysaa caqabada qudhe teenagerka iyo dadka barbaarta dhalinyarada markay barbaarta noqdaan haysataba iyagina wax sax bay isleeyihiin sidan bay isleeyihiin wax ku saxaya muquunintan marka maadaama waalidka aan mushkiladda ku baraarugsanayn halkaas xiriirada qofka bidigiisu ay ka soo xumaanaya iyadoo yaraantiisa wax badan ay soo xumaadeen ay halkan wax badan oo kale ka sii xumaanaya ka halisteeda la runtu waxa weeye mataqaana marka gurigeena inaan ku wada nooliyeen walaala aad bay habla loogu taadiye inanka maxaad darkiisa u meeru weeyay maxaad u ka weeyay cuntadiisa maxaad isaga boqora dadana inantii wuxuu arkay wax liitay waajibtayna waxaan qabato uu ku canaananaya dadana inay yaro dheer baa maalin kasta ma garan dhibaatadaas markaa waajib dhibaatada hadda waxaan maleynayaa in si looga soo yara baxayo dadkii way yara ilbaxeen imanka oo waxa dhaqamada waa laga soo weynaanaya halka idinku habluhu ay tacadiga ka tirsadaan anagu weyntii guriga joogayaan hablihii hooyada islada inanimadii u diyaariyay dibri reer bay yeelanaysaa yani diyaari ninka lama diyaariyo badanka ninka si guud in talo iyo tusaale loo siimeyna lama diyaariyo ninka deegaankii waa qaca diyaariya inan kasta oo gurigooda markuu joogo dabeecad xun oo laga boqo ciyaalka inankaas markuu xanaaqay indhaha casaada suuqa markuu joogo nin caadi weeyaan dadkiisa ku dhex jira ma dabeecad ma suuqa markuu joogo waayo maadaama marka suuqa aanu soo baxayno suuqa deegaanku isaga ku tababaraya haddii gurigeena ka dabeecad xun tahay oo magacaagaan kor loo qaadi karin oo xaggaagaan la soo eegi karin suuqa marka tabandada nin waxa ula tegmay sidii ku ka daadinaya annaga marka deegaankana tababaray idinkana guryaha la idinku tababara kowdhe waan garta sidoo kale waxaa jira fikir ma aha inantii hooyada oo qudhahe dumarkeenna oo weliba aan filaya reer waqooyigan inuu yahay aad uga dhaadhacsan haddana imika anigu burcointan kajada tago israahdo cuntada kajada ka soo rido ama kajada wax ka soo qaado qorqodiya saqajaan baa tahay maxaa kajada ka soo doontay waa lagu odhanaya kajadan aniga inantan aad leedahay waa lagu tacadiyay waxa odhanaya inanka maxaad wax ugu kari weyday iyada igu caayaysa maxaad kajada ka soo doontay isna kajada iskaga fogaada aan iyada ka sugaa wax walba marka dhaqan bulsheed baa jira oo inagu dhex baahay oo si walba dhibaatiya hagardaama u ah inan yeena bahagardaama kuwa ka mushkiladaasi way jirta inamada markay barbaarka noqdaan isbedel ku dhaca waxa ku dhacay isbedelo dhinac kasta leh iyaga maxaa tala siin lahay wixii 20 ka yar xilligaas kale talaba ma qaataan adigu marka qaangaadnimadu kugu bilaabanto 13 ilaa 15 dhax sida 16 jir intaad ka gaadhiso markaad nin tahay oo markaad ugu madax adag tahay markaad aaminsan tahay cid kasta inaad ka caqli badan tahay hataa aabahaaga la sheegay inaad ka caqli badan tahay waxaad soo maraysaa marxalada aad aaminsan tahay gabadh kasta xaggaaga soo egtaaba inaad ku doonayso gabadh kasta halka dir lahayo martaaba inay ka daba dhacsan tahay mid kasta oo iyadoo meel eegaysay isheedu ku yara dhaafto aad aragtay in xaggaaga in yar u soo yara maqan tahay wasirnayso wallahi taas way ka dhex baxday yacni xaalad buu qofku ku jiraa kala guura baynu odhan karnaa xaalad kala guura buu ku jira markaas kale talama qaataan markaasoo kale waxaan quran ku talinaya waxa weeyaan khaladaadka xilligaa ku dhacaysaan intaad cashara ka qaadataan hadhowdu markaad 18 jira dhaaftaan isla khaladaadkii dib ugu dhicin rag waaweyn noqdaan laakiin xilligaas kale talama qaataan way hawshooda wadanayaan adiga tan su'aasha dib ugu celiyo hablaha daada ku jira wax kala talin lahayd hablaha daada ku jira horta iyagu sida inamada ma aha xaalado badan bay waajahaan fikirka kamida isku buuqa kamida hormoons bay isbedelaa xaalado badan baa ku dhaca markaasoo kale waxay ugu jecelin kaliya in la fahmo oo loo naxariisto iyadoo xaaladaysan tiraado kajada galo toos weelka waxa laga yaabaa in istiraha adduunka cid ku jecelba ma joogto marka iyaga ku dhowday in la fahmo oo loo naxariisto waayahay
su-aasha bartaasaynu kaga tegaynaa iyadana su-aasha kalena waxa weeyaan in ilmaha la dhagaysto dareenkiisa la ixtiraamo lala sheekaysto la weydiiyo wuxuu maanta iskuulka kusoo arkay ama kala soo kulmay saameyn intee leeg bay ku yeelataa korriinka maskaxda ilmaha wallahi wala saameyn dhinac walba waxaa jira inaan saaxiibanahay oo inan yar buu dhalay inantiisa yar markaa markasta oo nin aad macaarif badan weeyaan markasta nin saaxiibiyiin baa guriga ugu yimaada dabeetana inantiisa uu jecel yahay wuu la sheekaystaa 4 jir meelaha 5 jir bay markaa ahayd wuu la sheekaystaa dabeetana iyadoo yaroo 4 jir iyo 5 jira ayay sida filosofiyada wax ku weydiinaysaa waayo markii su'aal weydiiso kama su'aal kasta weydiiso uga jawaaba waxay doonto su'aashaasi ha ahaato uga jawaaba waxay doonto su'aashaasi ha ahaato uga jawaaba dabeetana waxay yeelatay aqliyada filosofiyada kale dadna qofka waxay weydiinaysaa su'aalo maalin baa waxaan aragtay marka dhowr nin oo adeer ugu beegbeegan oo ay aabaheed saaxiibayeen guriga ugu yimaado oo mid kasta inan yar baan dhalay ama inan yar wato ama anigoo qiiqayo iska soconayo ba guriga ugu yimaada kadib ugu taa adeer horta adigu miyadan inan yar ba dhalin saan ku adeer ma weli maan dhalin soo taa adeer adigu miyadan dhalin ma waan dhalaaye ma adeer waan dhalaaye saata waan dhaxay wallahi sababtoo hadaa soo ka baaniga dhalay sababtoo adeer abu isku dayay weli waan isku dayay ilmaha yar waxa soo aqli iyo intelligence waxa uu sameeyo wala sheekaysiga abeed baan aad u wax baaro oo wax akhriyo oo wax fahmaya oo yaani la sheekaysta dadna waxay ku disaa sanku waa maxay sanku sanka u sheegaysaa muxuu sanku u daloolaa qofkii isagoo yar shan jiro wadna filosof noqonayaaba waxaan aaminsanahay haddii waalidku uu siiyo ilmaha chance ku filan oo kula sheekaysto inuu ilmahaas noqonayo qof noloshiisa dambaani buuq kaleyn saasaan u aaminsanahay marka carruurta la sheekaysta dhagaysta weydiiya su'aalo marka dee qiiq ka baxayd kaliya taad soolanaha tahay single ka iyo marka dee dad ilaahay ka beeras ku soo dhaqmin ha sida hooyadu buu tasarruf tirtay ajiib ha wata la wanaagsan waayahay maxaa ilmaha kalsoonidiisa hoos u dhiga ama way qabaad sleedaada wallahi walaal korriimaduna qayb weyn bay ka qaadataa deegaanka wuxuu kala kulmayaan qayb kale weyn bay ka qaadataa حتى مركب وينادو واحد شرا دد يقو عادي انت دشان مركي وينادان كلسون درده ku beeranto baraha bulshada iyo waxaas ay ku beeraan oo qofkii markuu daawado dhowr mawduuc oo ka hadlaya midalan kalsoon daradu kaliya ma aha in naftada ku kalsoonaan weydo qura hatta markii ka galsana dadku kalsoonaan weydo in dadku kalsoonaan weydo naftada waxaan dadku waxay u yaqaan meelaha ku arkaysa tuulin lagu leeyahay dadka ku kalsoonaan in binaadmi waliga qof binaadmi ku kalsoonaan buuqyada waxaan waa cudur weyn dadka ku kalsoonaan sadoo noona sadoo cid ku kalsoonaan dadna qof kasta oo aad isbarataan aad calaamad su'aal saaraysa ifar hatta markii dambe hooyada hadalkii kula dad calaamad su'aal saaraysa oo soo hooyo maxay uga jeedaa dabal socota ni markaa kalsooni darradu waa wax xilli kasta iman karaya ma wax yaraanta uu ku yimaado oo dadna hadhow la weynaada ma iyadu weyn buu iman kartaa kalsooni darradu way iman kartaa ma garanayo wax filayda kala hablaha iyo namadu inay kala deegaan yihiin anaga badanka niyo saameynta koritaanka waalidku saameynta hablaha ku leeyahay nagu malaha aniga deegaanka saameyn nagu leh hadii markaan barbaarinay sakadaha guryaha igu dhaw waxa jira sakada aan mari jirin iyo qaar aan anigu ka talin jirnay qaarna naga adig baa jooga qaarna ka adignahay baa joogay marka dad meel halkan bila kalsooni ku taalka mid kalsooni ku leeyahay marka korriinkaas iyo loolankaas iyo siraacaas iyo halgankaas ilaa yaraantiidaan ku soo jirnay ay ilaa hadana nagu sii jira marka idinka ka hablahaantiina ma garanayo maadaama guriga joogtaan si ay taas saameyn ku leedahay laakiin kalsooni darradu maaha wax ku yimaada kaliya korriinka oon korriinku qayb weyn buu ka qaataa haddii waalidka ay wax kasta ku go'aamin jireen haddii yacni aan dooqaaga iyo rabitaankaaga marnaba la tixgelin jirin waxyaaba noocaas dad la kulmi jirtay kalsoonidaada way weeqmaysaa way anagu hooyooyin baan nahay anigu haddaan hooyo ahaan ka hadlayo dareenka hooyada korsiimada carruurta ama sida ciyaalka loo koriyanaan khibrad xoogaa igu filan leeyahay waxaan isleeyahay ilmaha kalsoonidiisa waxa weeqda in la caayo kelmadaha aan u qalmin lagu idhaahdo guriga Soomaaliga waligiiba eray caadi la isku yiraahdeen shan qof oo walaalaad in shanta mid magac xun buu leeyahay macamadan magac xun ku lahayn iskuulkan ku lahayn gurigan ku lahayn hooyo mid taqaano aba mid yaqaani maada noolaan baga Soomaali dhexdeeda kuma noolaan karaysan magac malaana laakiin inaan is khaldan lagu bixiyo hadii midabka ku yara madooyo kala guraati dusha madooweed meeda kalsoonidaada waxay u dhaawacaysaa si aan caadi ahayn laakiin inagu saameynta ma ogin xaqiiq wallahi way jirtaa laakiin yumuj chuknaxii meeran bayna joogta weyn ku wadanaana waan la qabsan ilmihi waxay ka dhigaysaa isagoo xataa gar leh buu ooyaya gartiisa ma sheegan karo in xayeesh bad qalbiga ka noqonaysa aad iyo aad marka waxaan leenahay carruuraha ka daayay hadallada deel qaafka kuwa markay korayaan yaryar yihiin kulley Soomaaliyiin ma ayaan kuwaas oo kula talinahay waayahay su-aasha kalena waxa weeyaan in ilmaha la garaaco halkii wax loo sheegi lahaa ama aad yar hadduu qalad galo loo cudur daari lahaa adiga say kula muuqataa horta
qofka bini'aadmiga in loo cudur daaraa xadiis baa jira nabiga alayhi salaatu wasalaam laga soo wariyay inkastoo qaar ay culimada daciifiyaan oo yidhaahda iltamis ilaaha ka sameyna cudran walaalkaas tobaatan cudur daar u raadiyay marka in cudur daar la isu raadiyaa waa bini'aadminimaba waa insaaninimo iyo caruurtii ma deegaan miyi walaan mise deegaan magaalo deegaanka miyiga duruuf baa keensanaysa caruurtii in la dilo miyiga marka la joogo nolosha oo dhan baa haadha nolosha oo dhan deetana marar badan asteexad iyo wanaag iyo hadalka wanaagsan waxba ma taraan haddii inankaaga yidhu hadal wanaagsan kaa dareemo birintu tuulada yimaado meelahan sigaar kugula cabayaayo oo qaad kugula cunaya dabeecado duruufo badan oo miyiga keensanaya baa jira in ilmahan yacni gacan loo qaado mararka qaar gacan loo qaado laakiin magaalada markay noqoto ma arko duruuf keensanaysa in ilmaha gacan loo qaado iyadoo ilmaha wax loo sheegi karayo weliba soomaalideenna waxa la yaab ay kusii yihiin qofka waxay ku dilaan waxaanay u sheegin inuu khalad yahay malcaamadda maalin la imanaya mid yaraad saxmaasadaysaan imse jir baana lagu dilay mid yaraanu saxmaasadayno macalinka isu sheegin markuu mid dembi galo ayaa adigoo mid hooyadaa waxaa ku samey ku yidhi buu macalinka u imanaya hooyadaa waxaa ku samey shar iyo khayr waxay tahay baan garanay weligaan ugu odhan waa ceeb buu macalinka u imanaya macalin aadan mar dhawid waxaan afka la soo marin karin buu halkan kala ahaa 12 maanta bugtaasa laga saaraya maxaa lagugu dilaya dembi aadan gelin ilaahay in abuurtay baan qofka bini'aadmiga u qaban dembi aanu gelin bsu macalin yarna halkan ku rifaya akhra kugu diraya marka walaal waa dhaqamada khaldan weeyaan dilmadan joogtada ee caruurta lagu wada oo dhaqamada khaldan ma aaminsan inay meesha ka wada baxdo oo marar badan waa loo baahan yahay kind of cunfi wax yara maganaysa yara qofka baqagelin ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala markastuu jannada inooga sheekeeyo aayad cadaabtaaba ku xigsiiya baqagelintu meesha ka baxda maaha laakiin waxaan qabaa ciqaabta in si kale loo bedelo masalan waxaa jira anigu maraan iskuul macallin ka ahaa halka ardayda macallimiintu ay dibadda u saaraan anigu markuu arday boqoqo galaaskan dhex istaajin jiray kursigiisa u fadhiyan kuna jiray istaag xisadiisana uu ka faa'iideysanaya ardaygu xisada lacag buu ka bixiyay maaha in laga saaro dee anigu lacag kuma bixin xisadiisa ku bixiyay xisadiisana uu ka faa'iideysanaya 3-4 daqiiqo markuu saa yara taagnaaday yara daale ee konton arday u dhex taagnaado yara khajirana marka dambe uu fadhiisanaya uu aamusaya taasina ardayda ku ciqaabi jiray ardayda xisadka ma saari jiray marka inaga dhibaatadan waxa weeyaan ifan xataa diinta markaynu soo gudbiyeen culimadanu si diinta soo gudbiyaan diinta qaybta ciqaabta aba laga soo qaata hadda xaqan samayso ilaahay jannada musa ku rubaya hadda xaqan kale u dhaqado cadaab baan dhaasa lagu gelinaya korka ku fishfishlaynaya noloshan istiixadeedu dhammaan naga maqan diin ahaan iyo dunya ahaanba marka waa dhaqan iyo caado ummaddeena ku xididaysato ilaa daaqalka hoose u gashay in mar walba xagga ciqaabta iyo adayg iyo hadhka wax laga eega ma garanaya si looga saari karo laakiin waa si wanaagsan laakiin halkaa garaacista wax kale ku bedela ugu yaraan tala adag siiya ama 3 cisho ciqaaba inuu qolku xidhaan oo kaba soo bixin ama masalan caruurta iminka waa kuwan tifiyada iyo ay tabladida iyo waxaan ku diranba kuwaasoo kale ku ganaax ama nusaaco kale ku ganaax ama hadduu iskuulka bas raaco inuu lugeeyo ku ganaax oo lugaadhe 150 ganaaxis baad ilmaha yuru samayn kartaa in jirkiisa inaad nabar u geysatay inaad disha waliba ku darso haddii ilmahan waxaan ciqaabtan iyo dibga doonsan iska daaya aad gacan iyo dilma kaga jarayso ishaad u la wareegaya maalinka aad ku arki waayo ama meelahan markaad ka muuqan weydo shaqadiisu qabsanaya aad iyo aad marka talada waa inta way aadan maxaa ku kalifay ilmuhu inuu been sheego ama beenta barto ayay kula tahay inuu deegaanka iyo waaqaca ku xeeran markaad khiyaamada iyo beenta iyo xaasidnimada iyo diradiraalaha iyo wax isku dirka iyo qof inaad daba gashay waxaasoo dhan goobta waxbarashada malcamada iskuulku ugu horeeyaan ayaa laga bartaa bartaasada xamaasada ku baranaysaa khiyaamada ku baranaysaa marka maalin walba macalinku iska kaa dilo waxaa jira 2006 magaalada Burco ka tagi meel miyiho reeraha igu degaan malaado gowla leeyahay dalka samal camal laga dara ka xaalada caafimaad ban magaalada uga tago aad baan xanuunsaday oo fi waxba igu dhaadhacay mise miyiga la isaar dabeetana laanduudiyo ku badan si aad ka baxa u jeclaa oo aad u ciyaari jiray dabeetana malcaamadii markaanu tagnay ayaa maalin kasta wax liigu dilaa kubad buu ciyaariyo laanduu buu ciyaar ayaa malcaamadii markii soo danaan mashin bukaan haaba baan ahayo feedhu xanuunayeeno oof iyo balaayo wax isugu tageen oo tigtigan de bartaas sad xamaasad uga qaadaysaa kii macalinka kuu sheegay ilaa iyo maalinka malcaamadii dhameynayay kii waa isdabagelayn oo markuu yidhaahdaba waa soo sheegay macalinkan uu sheegaysna way sheegay maalin midka ayaa dilaayo kawaan ka saaraa bartaas khiyaamada ku bananaysa 3 su'aal adag baad iska soo dul xidhanaysa hadhowna khiyaamada ayaa kaartooyinka sameynaysa mid la weynaanaysa ilaa iyo maamulka ummadda la tagaysaayo aadamada halkii milyan ee doolar ummaddu leedahay baa 900 marinaysayo kun beenta halkaasaan ku baran inaan been ku dhaarana halkaasaan ku baran macna wallahi waa beentiisa halkaasaan ku baran wax kasta oo xumaata ah marka guriga laga yimaado ilmuhu wuxuu ka laqantaa goobta waxbarashada wasaaraddeena waxa la yiraahdaa wasaaradda tarbiya waa tacliim tarbiyada horeysa laakiin waa meesha koobaad ee tarbiyada lagu dilo marka nidaamka waxbarasheed ilaa system caadi loo sameeyo waxbarasho ama waalidiinta inta wax fahansanaytay macallin caadi qabsadaan caruurtooda si akhlaaq iyo anshax loogu dhiso meel gaar ah ay wax ugu dhigaan mooyaane ilmi caruurteenu saasay beentiga qaskiga qulubka u baranaysa maxaa siyaasiyiintana wada saqajaaminta iyo tuugta ka dhigay ee mid wax qabteen uga laanay sidan bay ku soo wada barbaan ilaa maalinku soo garaa sidii been soo sheegay
oo wax istaba marinayay hadhow tole marka la yiri waa weynaadana guddi baa iskuulka loo sameynaya iskuulka kale marka la yimaado guddidaasi galaaska lacag bay ka urunaysaa odhanaysa waxaan baynu ku qabaana inta guddida lacagta istaba marinaysa oo cunaysa musuq maasuqan uu in cabdilaahi xasan musuq maasuq Soomaali waa mihradeeda ilaa iyo malcamadu ina daba socda marka goobaha waxbarashada iyo xumaanahaas oo dhan ka soo jeeda ku abtirsadaan anigana waxay la saxa mataqaanaa inuu waalidku ilmaha run u sheego tusaale ahaan suuqu qabanaya waalidkii ama aabbo ama hooyo waxaasan ku keenaya buu ka odhanaya ilmihii wixii isagoo sugayo kadinka fadhiya ayuu imanayaan ilaa aabbu waan soo ilaawo ahmiyad lama siinaya ilmihii hadhowna waalidkii been buu sheegay isagoo waalidkii been muu sheegin waalidkii laakiin ahmiyad muu siinin ilmaha taa qudhida tababaro ahba halaasaaba tababar rasmi ku jira sidoo kale marka ilmaha inuu runta sheegay runta lagu dilana مثلا مدبان عايو هويدا waxa ku sameey ku wuri aaba la sheeg war madaka hooyada waxa ku sameey ku dhahaaban ku ruudile bartulaha ma ku oranay marka inta ku dhahdo oo kitaab jamca gacanta ku saarayeen aan ku oran si aad u badbaa ha survivor film hayniyo ilaahay naastur aakhiriya dumba mawduucan inta aynu ka hadlayno ka balaarin aad buu uga balaarin yahay runtii mawduuc xasaasi mawduuc qoto dheer weeyaan ha laakiin aragtideena inta yare aynu ka gargaranayno ama aynu isleenahay waa taaban kartaan baynu dul yaacayna اللهم صل على محمد وياهي waxaa jira ilmo duruufta ku kaliftay in qaab qaldan loo koriyo sabab la xiriira kala taga labada waalid maxaad kula talin lahayd dadka gacanta ku haya ilmo duruuftu baday ehelkiisa u dhow gurigooda ku nool maxaad kula talin lahayd wallahi badan baa ka dhac wallahi talam male qofka waalidka ahi haduu doonayo ilmaha ilmo u dhalay inuu ka dhigtana uu ka dhiganaya haduu doonayo shay ilaahay badan inuu ka dhigtana uu ka dhiganaya talam male waxa jira waxyaabo aan la iskala talin karin qof walba badee maalinka qiyaamisaad jecelayd in lagu soo saaro oo la dhaqan damaanto wuxuu waa inta ilmahan aday ilaahay gacanta ku soo galiyay adaa kafaala qaaday adaa ka wakiil adu gacanteeda ku jira Soomaa laga yaabaa inaad tahay waalid misalan caniifaho dilmo wax ku wada hadii kaaga iyo kaad dhashay isaga isku sii dilaysa xataa la calay waa caruurtaadii ku xisaabsan yihiin dilmadu khalad ha ahaato laakiin caruurtaadii ku xisaabsan yihiin laakiin sida imka marar fara badan dumar aynu ku aragnay ilmo ninkoodu dhalay ula dhaqmayo bulshada badan kala soo galiyay aynu ku aragnay oo kale qofkaas oo kale wuxuu istaaheen xabsidayn lagu ilaawo maadaama sharciyo nidaam iyo kala dambeyn aanay jirin tala wala waxba qaban mayso qof ilaahay samaystay subxaanahu wa ta'aala ka cabsan waayo amarradii ilaahay qaadan waayo ilaahay kaga biqi waayo ilmaha yar gacantiisa ugu jiraan hadli karayni talada aadan ayaan halkan ka sheegayeen muxuu baahan amarkii ilaahay baa meesha marayay dadkaas oo kale waa dadka u baahan in iyo caruurtaas oo kale waa kuwa u baahan in inta loo sameeyo sharciyo nidaam dawlad u baahan hadhow toona ka sidan u galiyo quraan la ciqaabin macalbadii dhalay kala tagay la ciqaabo xabsidayn loo diro inta adduunka ka keenay bicilada ku dayacno saacad loogu silcinayaa burburka qoysku wuxuu sababaa inta badan caruurtu inay dayacanto sida weyd bafrinka adigu naaba aad baan naaba marka waxaan leenahay ilaahay ka baqa oo ilmaha gurigaaga jooga il dheeraada u yeelo uga eeho xitaa kuwaad adigu dhashay ka jeclow dareensi inuu muhiim yahay ha waaya gabagabadii aadanow guud ahaan waalidka Soomaaliyeed maxaad tala siin lahayd maxaad ku amaani lahayd maxaad ku dhaliili lahayd saddexda kala qaad والله سؤال أدقتني سؤال أدقني والدك لما دليل كرا يو دمر كان هذا دليل خضر يلون بهرتي ذي السوت هاجية لما كيوتو هو نكسر مع ويانو أنا جموتشينيو والدكي سيد بدك والدين السمارة ما هو أرتطوت له حلم الدلام بلبدي وايد ولو ودق عنكو قاد معايا واي وغضب كل بدو ولا بو والده أن ولقى نرش هذا صفرة قشرين شر يا خير واحد دون تصمي شر يا خير مركها هذا هانتي دلوقتي فرق بدن ولا هي بدن أي ترسة تمان صارك laakiin waalidka horaan sheegay waalidka waaweyn inaga ina dhalay wax tala aynu siin karnaa yaraatee ma jirto iyaga iska ilow iyaga ina tala siiso waalidka yar laakiin waxaan leeyahay war ku beer caruurteena jacaylka aad doonaysaan hadhow toole markaad gabowdaan jacaylka inay idin kula joogaan oo madaxa idinku sitaan oo idinku tuurta idinku sitaan ilaa intaad ka asaasada sanadka gudgalaysaan markaad gudgashaan ka bacdina ay halkaa idinka soo duceeyaan oo ay halkaa dee sadaqa jaariya idinka soo bixiyaan oo idinka soo duceeyaan wixii jacayl lagu abuuro ayuu mahadhow jacayl laga dheefa caruurtu waa weelkaa maran adigaa gacanta ku haya adaa ka mas-uula nabiga alayhi salaam wuxuu leeyahay ilmo kastoo dhashaa fidradu ku dhashaa islaamka ilmadiisa waalid ama yahuudeeya ama kiristaameeya ilmahagaas isagoo weel marana buu gacantaada soo galay oo ilaahay ku kaa dhex beeray idinka dhex beeray waxaad ku shubataan bad hadhowna ka dheefaysaan dee imika ula dhaqmaysaa jeclaan inuu hadhow idinla dhaqmo dadatan inuu hadhow baqdin idinkula dhaqmana imika baqdin kula dhaqmo hadhow hadhow in maxabiya kala gacan kula dhaqmana imika maxabiya kala kula dhaqmo taas waa talabadan ku dhaliilaya waxa weeyaan waalidka Soomaalidu waxay sameysteen maamaha tiraahdaa ninka weyn waxba looma sheego ninka dheerna waxba lama tuso iyo dhalankii hooyadii dhalmada baray haddii aabaha ama hooyadaayo aayad quraan si yaro khaldan u sheegay istiraahadu sax sabab ma aayadaas aynka ma wacinka sanadku uu hornaa yaad ilaa maalin aanan hooyada qabin meesha ku soo tukanayay iska fadhi meeshaada tani waalidku waxaan leeyahay dhaliisha leedii waxa weeyaan inaad u aragtaan mar hadda just inaad waalidkiin oo qura inaad perfect tihiin ma tihiin dibnaadmi baatiin wad khaldami kartaan maanta waalidku uu ku qirayo wuxuu ku oranayaa adiga wax bartay dawadan iyo akhri adiga wax bartay lambarkii hebel soo saar
اوكي iskuulkan waxaad igu dirtay malcamadan waxaad igu dirtay waxaad wax ii bartay inaan sidaadoo kale noqon aan anigu ismaamulo cilmi iyo aqoon yeesho wixii aan soo bartay marka hadhow kulay madan ku wadamay waxaan sidan maayo wacaynkan ama ayadaasaa loo akhriya saasaa loo akhriyaya ama waxaan magacan male waa magacan dee qaado haddii laakiin adiga lafteedu yahay qofka koobaad diida iyaguna iyo nagala tagnaa waxaan noola imanne cilmigan iyo aqoontan adiladay waan ku baray abi iyo xageen geenaya hadhow yaanu la tegaya qofka iga dhegeysanaya waayo marka isla qumanaantan qoorta ugu jirta waalidka Soomaalidu ha ka saaraan meesha tan ku amaanayana dani waalidkii way kala duwan yihiin oo qof kasta waalid gaar ah koriyay waalidkina waa sida bini'aadmigeena oo kale aniga adigu ma dhow waalid noqonayna nin baa waxaan ka hayaan saaxiibanahay ama shinu meel ka soo akhriyay maaliyo wuxuu yiri qof kasta oo gar leh qof xikmad iyo murti ka buuxdo way araga hoo malayna doqomo badan oo yareeray waa weynaaday baa jiray dad badan oo doqomo isaga hay waa weynaado gar yeeshay baa jira maan aniga ma saaxiibanahay baan ugu baracad barayna baan waxaan isku qabanay aayad masaxadiis adigu mas'ala diiniya baan isku qabanay deetana sheekhu halka marayo haybad loo gar weyn oo ilaahay yaabku keenayo oo khamiis oo ayaan u tagnay هذا مسألة سمعين كاسم سمعين كا سانتو نيجي ودادر وقرك يا خميس كتسوي قتين هذا والله ما غني من ايش يقول كودي لانه ولا جاي واحد ينبع انت لما يروح سوق قبتين بسرعه مثلا انه كاودا قرك وين لينوجي شو زين اسك عيال سوق اسك قر وين بوها سو هذا قرك قرك مودين ما aha marka waalidkii baa kala wada duwan waalidkii baa duqan weynaaday frid weynaaday bay ku jira aniga laakiin waalidkeed sigaar ay weydiinayso waan waalidkii waxa qulubaan ku amaanaya waxa weeyaan hal mas'alo aan aad u jecelahay aan ku dhinto aabaha iyo hooyada iyo iyadii aabay soo korisay inaan ka helo masaladaasna waxa weeyaan waxa la yiraahdo xurriyada shakhsiga masaaxa shakhsiya aagaaga shakhsiga weligood kugu soo fargashan maayo wixii taliyo tusaaliyo halka guud ay ka odhanayaan mooyaane waa madaxay igu saaran yihiin waalidkii waa inta noloshaada shakhsiga gaarkaaga adaga oo jahannam kula dhaxtaa doonto wixii taliyo tusaalaha mooyaane ka intaasna taariikh kaga baxaya si guud waalidku way amaanayeen waalidka Soomaaliyeed ilaahay khayr ha siiyo darxumiyada dayac badan iyo burbur badan bay nagala soo dabaasheen iyagana soo koriyay laakiin waalidka la hadlayo mawduuca ayagu sida dhabta ugu socdaa waa waalidka hadda jooga iyo inay ku baraarugaan ilmahooda sidii ay ku dhug yeelan lahaayeen gabagabadii waalidka wax akhriya waxaan kula talin lahaa ama waalidka jecel akhriska 4 buug iyo ka badan oo quseeya caruurta si gaar ah sidee ilmahaaga ku maqlaa waa buug Cabdilla Shafi ayaa qoray buugga labaadna waxa weeyaan haddaan ku baahanahay hoodo Xasan Salaan in la yiraahdo ayaa iyaduna qortay buugga saddexaad waxa weeye mu akhriyo waalidkay Maxamed Cabdi Cali ayaa turjumay buugga afraad waxa weeye talooyinka nolosha Jaafar Yuusuf turjumay Jackson Brown talooyinka nolosha aabbe weeyaan inankiisu buu siri talo u qoro deetana suu buug yar jeebka uu siistay maalin baa lagu qoray barkiisa oo 1500 sii wada marka talooyin badan baa ku jira buuggaas waan akhriyay anigu isagii kan baan akhriyay mu akhriyo waalidkii labada kan talooyinka nolosha waxa ku jira talooyin fara badan oo deegaankeena la jaan qaaday ninku waa nin Mareykana laakiin adiga muhiimadu waxa weeyaan 1500 talo xataa hadii konton tala ka anfacdo ka badan de ka waxyaabaha la yaab kale ka bartay buugga waxa kamid ah xoranaya waliga marka qof la hadlayso oo kiyaala iska bixi ixtiraam qofku dareemaya marka nin salaamayso gacanta ku adkayo si adag u salaano xoog ruux hadra mu salaamiyo inuu yahay laakiin marka ina salaamso siiro kiyuto macaan u salaaha aku adkayna gacanta meesha la fahmi jiraan jiriir iska qurux badan meesha yaale wadalooyi qurux badan ka bartay kamid ah waxa kamid ahayd xoranaya isagu maalin kasta Bible-ka akhri laakiin halka Jaafar wuxuu ku bedelay maalin kasta Quraanka akhri qaacido hatta ninka Kristanka ay maalin kasta Bible-kaas uu akhriyo ayuu ilmihiisa kula talinaya si qaybtiisa ruuxiga uu dhiso ay kula talinaya marka aad buu macaan buugga yar aad buu macaan doonta buugaagtaas kuwa wadanka jooga waxay ka heli karaan Iqra Books iyo meelo kale oo badanba meel kasta oo ka heli karaan marka buugtaas aan idin kula talinaynaa gabagabadii waxaan u mahad celinayaa Aadan Khadar Cali barnaamijkayga marti ku ah waa buu leeyahay imka barnaamijka wad mahadsantahay Aadan adiga mudan mawduuca xiga intaanu ku kulmi doona insha Allah nabadino